كودين no way يب صار يا دادمان وعنيقا maanta waxaan aaday heebta liido abaara markay ahayd 12 subaxnimo ama daw taqaanid 6 subaxnimo waa maalintii labaad ee ciida waxaanu meesha kala soo kulnay waxyaabo aad iyo aad u fara badan waa 6 subaxnimo magaalada muqdisho magaalo walba waxay leedahay dabeecadooyin u gaar ah magaalada muqdisho dabeecadooyin gaar ay leedahay su'aalaha habeenadii inta badan 5 iyo ilaa 6 7 yani magaalada way amran tahay laakiin subaxdii hore ilaa 3 saac magaaladu waxay moodaa inay xiran tahay oo ganacsiyada inta badan qaarkood xitaa waxaa jira 4 saac 5 saac la furayo qaarkood waxaa la furaa 6 duuradii oo kale meelaha marka magaaladan yani dabeecadooyinkaas ay leedahay reer xamarku waxay dhahaan xamar joogis bay ka rabtaa waxyaabaha la rabo in la qabsado ay ka mid tahay mida mooyee sababteeda ma sheegi karo waxaan soo gaarnay xeebta liido subaxdii hore weeyaan qoraxdu hadda ay soo baxaysaa ilaa xeebta liidiyo xamaar barashadeeni xaafadda ku kulannay xabiibi adoo maqan xallay soomaan tegin ilaa xeebta liidiyo xamaar barashadeeni wadda anaga iskala saaxib Ethiopia iskama laha Kenya iskama laha xitaa hooyada iskama laha xitaa qof walba oo shacab Soomaali ah cunug walba hooyo walba adeer walba ku walba ayaa xitaa xayskiigu dahayo xanfaarkiyo dabayshii xisku muu dareemine xusuus dheer ayaan galay waxaanu ilaahay ugu mahadcelinaynaa inuu ina siiyey xeebta labaad ee ugu dheer Afrika xeeb gaaraysa 3333 kilomitir waana xeebta labaad ee ugu dheer Afrika weeyaan xeebta Soomaaliya marka anagu laakiin waxaynu noqonay dad aan ka faa'iideysanin baddaasaan u weyn aanu haysano baddeena lagu soo shubayo qashmaan aad iyo aad u fara badan markaan biyaha aniga ahaan ku dhex jiray waxaan runtii aan ka dareemin qashin badan meesha ku buuxo bacyaal xitaa bacyaal oo Soomaaliya lagu yaqaanay ama kusoo degay aysan ahayn bacyaal waxay yihiin oo noocyaal kala duwan ay yihiin ayaanu xeebta ku aragnay marka dadku waxay sheegayeen aan markaan weydiiyey in qashinka uu ka yimaaday dooman ama meesha lagu soo shubay badda dhexdeeda midaana dee daciitaan anagu dhankeena ka yimaada weeyaan marka waxaan rajaynaynaa maalin in dowlad yani amnigeeda boqolkiiba ugu adag xeebteeda baddeeda ilaashan kartaa cidda soo maraysa cidda yani soo gasha waxaas dhan ka warhaysa inaynu dowlad awoodda leh inaynu noqono baan maalin rajaynaynaa insha Allah waxaan go'aansanay inaynu galno xeebta oo aynu soo dabaalno waxaan go'aansanay inaan qaadano doomanka lagu dalo qofka raba inuu dalxiis ahaan u fuulo ama xeebta gudaha la geeyo doomankaas uu raacaya $3 ay ka qaadayaan yani qofkiiba waxay ka qaadayaan 1.5 anagu $3 ayna qaadeen ilaa xeebta liidiyo xamaar barashadeeni xaafadda ku kulannay xabiibi adoo maqan xallay soomaan tegin ilaa xeebta liidiyo xamaar barashadeeni xaafadda wax dalka kaaga fiican ma jiro
meeshaan maanta haddii dal kale waxaan lahaa yani inaad ku fahamtid ama yani aad dhahdid yani hadalada qaar aad ka xishoon lahayd, laakiin markaa dalkaaga aad joogtid aad ku baashaalaysid yani wax unbaad gudaha ka dareemaysaa oo kalsooniya. runtii biyaha abaaraan ku jirnay, hadda waxaan go'aansanaynaa inuu shaaha iska cabno. gaajada hadda halkaa waxay la iskaga bixinaya kadib badda iskaga noqonaysaa. marka halkan waa Soomaaliya saxda weeyaan. Soomaalida adduunka looga sheekayo oo beenta ah ma ahan, waa dalkeenii quruxda badnaa. marka wallaahi xeebta liido waa goobta ugu quruxda badan saaxiib. qof walba shimaadana dee meesha inuu tago ama imaado waa qasab oo waa goob runtii aan isdhihi karo stresska iyo wax walbaa iskaga baabi'iyaa oo yani jawi qurux badan baad ku qaadanaysa intaad joogtid. runtii laguma caajiso meeshaan, waxyaabaha aan aadka ugula yaabay ayay ka mid tahay.